ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel xalay waxay la hadashay dadweynaha ku dhaqan dalkan Jarmalka. Hadaladeedii waxaa ka mid ah waxay sheegtay in xaalad dhab ah lagu jiro Jarmalka loola noocan oo kale ah aysan arag wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Cudurkana uu yahay mid si weyn u faafa. Waxay u mahad celisay dhammaan inta xarumaha caafimaadka ka shaqeysa. Waxay sidoo kale u mahad celisay shaqaalaha ka shaqeeya dukaamada qutul daruuriga lagu gado, iyadoo sheegtay inay yihiin dad hawl culus u haya bulshada. Waxay intaasi sii raacisay inay wanaagsan tahay qofka inuu si wanaagsan u adeegto oo waxyaro uu meel dhigan karo uusan qaato xataa, balse cabsida iyo kala boobka qutul daruuriga dukaamada yaala uusan wacnayn. Dadkana waxay u xaqiijisay in dukaamada ay sii furnaan doonaan. Waxay kaloo ka hadashay meelaha dhammaan bulshadu ay isugu timaado ee la xayiray. Waxay sheegtay in xirxiridda goobaha waxbarashada, goobaha dadweynaha ay isugu yimaadaan, goobaha madadaalada iyo ganacsiga aysan wax nidaamka dimuqraadiga waafaqsan ahayn, balse ay tahay mid lama huraan ah oo xaalad hadda lagu jiro ay keentay. Waxay kaloo ay sheegtay in adduunka dhan uu ka shaqeynayo soo saarista daawada cudurkan iyo tallaalkii looga hortagi lahaa, balse hadda ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii loo gaabin lahaa xawaaraha uu cudurkani ku socdo ama uu ku fidayo. Waxay kale oo ay ku dartay inay si weyn u garab taagan yihiin shirkadaha iyo shaqaalaha kana shaqeynaya inaysan boosaskoodii shaqo aysan lumin. Waxay dadka kula dardaarantay inay ilaaliyaan shuruucda, sidoo kalena qaataan talooyinka loo soo jeediyo. Khudbadda inta ay socotay dhan waxay aad ula dardaarantay dadka iyadoo u sheegtay in salaanta gacanta la joojiyo, in dadka wax hal mitir camal gaadhaya laga fogaado. Waxay kaloo ay sheegtay in bulsho ahaan iyo qoys ahaan la isgarab taagnaado. Waxay soo hadal qaaday oo ammaantay dadka caawiya deriskooda da'da ah ee adeega u soo adeega. Waxay sheegtay in wararka suuqa uusan qofku rumaysan, haddii xataa xaalad noocan oo kale aysan dadku weli soo marin, inay si niyad leh oo caqli ku dhisan ay u dhaqmaan. Ugu dambeyntii waxay dhammaan ku tiri inay naftooda iyo dadka ay jecel yihiin ka taxadaraan cudurkan coronavirus, kadibna ka mahad celiyaan ayay hawada u soo marisay dhammaan dadka ku nool waddankan Jarmalka. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar.